baqanto ayuu dooda ugu badan ka dhacdaa, waxa ugu badan xogta ugu badanna ku luntaa. Waxa weeyaan dadka ugu badanna intaasay isku fahmi waayaan. Marka arrintaasi waa aad iyo aad bay muhiim u ahayd. Marka ani waxaan doonayaa inaan ka hadlo maalinta 26 June siday muhiim u tahay, meesha ay ka timiday iyo macnayaasha ay samaynayso intaasiba way kala duwan yihiin. Muhiimadeedu waxay ku xidhan tahay ujeeddada aad ka rabto maalintaasi fahankeega iyo taariikhdeeda. Ma ujeeddo waxaad ka rabtaa inaad madax bannaani oo waxa weeyaan waxaad taageersan tahay ummad walba jiritaankeyga iyo inay iyadu ismaamusho iyo inaan khayraadkeyga la dhicin oo ay madax bannaanaato. Mise waxaad ka rabtaa state formationkan casriga ah. Dowladahan casriga ah weliba Africa waxay ku dhisan yihiin maalmaha sidan oo kale ah bay ku dhisan yihiin oo ay ka keensadaan sharciyadda ay adduunka kaga midka yihiin oo ay dowlad gaara ku yihiin. Marka badanaa waxaa la isku khaldaa waxa aad maalintaa ka rabtay iyo waxa weeyaan micnaha ay ugu fadhido stateka modern stateka ama waxa weeyaan dowladnimadan casriga ah maalmaha xorriyadda la qaato, iyo waxa weeyaan dowladaha ka dhasha. Arrintaasi aad bay u kala duwan yihiin, waana la isku khaldaa. Waxyaabaha la yaabka leh oo doodahana aad ugu soo noqnoqdo waxaa ka mid ah si loo xaqiijiyo state formation inuuna meeshaasi jirin ama dowladii ay ka dhalatay. Labada darafba way jiraan dad taariikhdaasi u turjumaya inuu dowladnimo ka dhashay oo xaqiijin kara oo haya waxa weeyaan waxa weeye hay-adda adiladeedii ama evidenceskeegii oo adduunka oo dhanna check garayn karayo iyo dad u isticmaala inayna halkaasi dowladi ka dhalan oo waxa weeyaan ay ahayd maalin maalmaha kale un ka mid ah oo waxa weeyaan laakiin laga xoroobay oo de halka ay kasoo galayaan ay tahay in la xoroobay oo madax bannaanin la helay oo arrintii loo wada shaqaynayay gees ku gees ay ahayd. Marka labada arrimoodba aad la iskugu khaldaa si loo xaqiijiyana inuuna state formation dhicin. Waxyaabo secondarya oon xataa primary ahayn ama xataa awliyaad ahayn yaa aad u soo noqnoqda. Waxaa ka mid ah oon doonaya hadalka kow inaan ku furo magaca Somaliland ee maalintaa xorriyadda qaatay iyo waxa weeyaan ma leeyahay xuduud, ma cid kala ku jirta, ma dalkaasuu u gaar yahay magaca Soomaaliya iyo Somaliland ma isku mid ba may kala duwan yihiin mise waxa weeye in magacaasi sidaasi u yaallo waxaa ka dhalanaya arrin sharciyadeed oo state formationka ku lug leh. Marka taasaan horta kaga bilaabaya. Ta kale ee iyadna ku jirta waxa weeyaan kolley waxaa jira marka arrin cusub mandaqada kusoo korodho oo siyaasad cusub ah ama waxa weeyaan talaba gacanta lagaa saaro, dadyowga talada gacanta laga saaro waxay rabaan waxay leeyihiin rabitaano gaara oo de kolley qanaacaadkooga iyo waxa ay ku fikirayaan iyo sida ay mustaqbalka ka rabaan ay ku saleeyaan. Waxa weeye waxay qoraan ama waxa laga helaa raadadkooga meelahay u socdeen oo ah waxa weeyaan ma inay dal madax bannaan sii ahaadaan. Waa meel kastoo adduunka ah bay ka dhici kartaa. Si gaara maalintan Somaliland bay ka dhacaysaa iyo waxaad arkaysaa doodaha iyadoo mar kasta ay ku jirto la leeyahay anagu maalinta 26 June kadib waxaanu ugu talagalnay inaanu Soomaaliya la midowno. Taa waxay ka dhigan tahay inaynan dowladi ayna halkaasi ka dhalan ama darafka kale yaa odhanaya maya anaku laayaa garaad baaba shicaar noo ahayd. Waxa weeyaan kuwa midnimada doonaya baa ahaa shicaarkoogu laayaa garaad, kuwa kalena waxay lahaayeen bal haynu gardaadino. Marka waxay usoo kala qaataan anagu dowlad baanu noqon doonaa, dowlad baanu ahayn iyo dowlad maynaan ahayn. Laakiin arrintaasi inay dowlad dhalatay inayna dhalan adduunka ma saameyn bay ku leedahay rabitaankaaga, hadalka qoran iyo waxa weeyaan sidaad wax u arkaysay iyo raadka aad helayso. Adduunka inta loola tago ma odhan kartaa dalkaasaa berigaa waxa rabitaankaasaan lahaa marka halkaasi sababtaa awgeed dal ma noqon karta ama waxa weeye aragtidaasaan lahaa halkaa deegaankaasi dal buu noqon karaa. Intaasi ma jaan goyn karaysaa. Waa arrin aad ugu dhex milan dooda maalintan oo waxa weeyaan aad u qalloocisa mar kaste. Marka taana waan ka hadli doonaa. Waxaan kaga soo gebagabayn doonaa maalinta 26 June micnaha ay ugu fadhido dadka Soomaalida oo dhan iyo Somaliland si gaaraba. Taa saddexdaa qodob baan ka hadli doonaa. Haddaan ku horeeyo magaca
iyo calanka oo ishuwan oo mar kasta dooda ugu weyn dhalisa. Waxa weeyaan qoraal aynu isla wadaagnay cabdirasaaqna sheekadan ay kusoo bilaabantay oo waxa weeye mar kastana lagu soo celcesho Soomaaliya waa magaca Somaliland oo Latiin ah. Magaca Somalilandna waa British, labadooduba micnahoogu waa dhulkii Soomaalida. Waxa weeyaan marka English loo qorayna kulligood waxa loo wada qori jiray Somaliland, French Somaliland, British Somaliland, Italian Somaliland. Marka Latin lagu qorayo Italiyaanna wada Soomaaliya bay ahaayeen oo xaqiiq jirta ah. Marka isla su-aashaydii uun ahayd taasi inuu daldashay iyo inuuna daldalan karin, ma jaan goynaysaa mise relevant bay u tahay? Horta haddaan magaca u imaado, magaca mar kaste iyo luuqad kaste waxa uu yeeshaa laba macno ayuu yeeshaa. Waa macno lexicalka ah oo lexiconka ah ama waxa weeyaan dictionaryga ku jira oo magaca rootkiisa etymologyga halkuu ka yimiday, halka laga soo drive gareeyey, macnaha uu u fadhiyo iyo historical sense-ka uu ku fadhiyo magacaasi ayuu leeyahay. Dowladnimada casriga ana waxay keentay inuu noqdo identity ama magac meel loo bixiyo. Marka isma diidayaan, waa laba macno oo waxa weeyaan magac kastana ku jiro oo la arki karayo, dowlad kasta oo dunida taalana laga dhex dheehan karayo. Marka magaca taariikhdiisa uu ku baxay iyo luuqadda uu ku baxay cid isku diidani ma jirto. Somaliland waa dhulkii Soomaalida, waxaa la odhan jiray inta Italiyaanku gumaystay hadda dowladda Soomaaliya ah. Waxaa la odhan jiray inta hadda la yidhaahdo ee dowladda Somaliland iyo inta Djibouti, intaasba waa la odhan jiray. Laakiin waa marka la isticmaalayo maxaa la yidhahdaaye linguistic magacaasi etymology halka uu ka yimidayo waxaa laga soo drive gareeyey. Laakiin marka la yidhaahdo political ama modern sense-ka waxa weeyaan waxaa lagu cabiraa entity xorriyad qaatay. Entity waxa weeyaan ka duwan meelaha kale oo dhan. Entity-gaasi ka duwan meelaha kale oo dhan la magac buu noqon karaa meelo kale, adduunkay ka dhacdaa. Magaciisana waa lala wadaagi karaa. Marka dadku waxay ku dhagaan 24 hours oo dooduhuna u badan yihiin oo magac micnihiisu waa sidaa. Marka aniguba waan ku jiraa, marka halkaasi dal ma noqon karto. Iyo magaca halka saasuu ku baxay, arrintaas uu ku jira, arrintaasaa ka ratibmaysa. Imika tusaalayaal haddaan arrintaa kaga baxo kusoo koobo, dooda ah waxa weeyaan magaca Somaliland baa tusaale oo aynuna halkaasi dal maalintaa ka dhalan oo Soomaaliyaba waa Somaliland micnaheega waxay la mid tahay uun Turkiga. Turkiya waa dhulkii Turkida. Waxaa jira dalal badan oo Turkiya oo maalinta Jamhuuriyadda Turkiga ka baxsan historically iyo recordska markaad eegayso. Dhulka Turkmenistan, Azerbaijan ilaa iyo China waxaad helaysaa documenti badan oo magaalooyin iyo gobollo lagu sheegayo dhulkii Turkida ama Turkiya ama Turkiland intaba lagu sheegay, maadaamay dadkaasi qoomiyad keliya ta yihiin. Micnaha ereygaasina uu yahay dhulkii Turkida. Laakiin modern sense-ka cusub ee dowladnimada, dee dowlad baa jirta la yidhaahdo Turkiya oo waxa weeyaan u diiwaan gashan adduunka, iyo Turkmenistan labadaa dal baa haysta magaca qowmiyaddii Turkida. Si legally bay ugu diiwaan gashan yihiin waxaan la yidhaahdo astaamaha qaranka ama identity-ga uu qaranku leeyahay. Marka waa laba arrimood oo kala duwan. Waxaa lamid ah Ruushka. Ruushka waxa weeyaan dhulkii Russia waa dhulkii Ruushka. Dowlado badan oo ka baxsan baa jira Russia oo waxa weeye magacaas isticmaalo, dhulkoogana loo isticmaali jiray. Waxaa la mid ah Sacuudi Arabiya, Arabistan bay dad badani ay yidhaahdaan. Dalal badan baad meel kasta ka soo helaysaa. Marka magacu labadaa macno ayuu leeyahay. Mar alla mar ay waxa weeyaan legal proof ay u noqoto dal jiritaan iyo jiritaan la'aantiisa ma jirto. Waxyaabaha lagu cabiro inuu dalka madax bannaani la siiyo iyo inuu waxa weeyaan uu dal noqdo oo uu helo aqoonsi ama madax bannaani independence inuu helo, categoriska loo eego kumaba jiraba. Waa sababta ay u beddelaan waxa weeyaan dalal badan magacaantooda dhowr magac ay soo maraan. Waa sababta calamada ay u beddelaan. Waxyaabo kaloo ka muhiimsan oo shuruucda caalamigu ay waxa weeyaan ay tixgelinayso oo eegayso oo decolonization-ka waxa la yidhaahdo ka dhex dhacaya meel cid haysata iyo cid la haysto processka uu marayo. Waxaa jira rules iyo regulation iyo resolution ka soo baxay UN-ta
oo la eego oo la yidhaahdo goobtaasi intaasi ma ka kooban tahay. Laysma weydiiyo calan sideeya bay leedahay, laysma weydiiyo magac nuuceeya bay leedahay. Waxaa ka mida waxa weeyaan sovereignty-ga ayaa ka mida. Waxaa ka mida Montevideo ayaa ka mida. Hataa dhowr solution oo waxa weeyaan halkan aan ku hayn jirayo. Waxaa jira aad looga baahan yahay inuu gumaystuhu sii eego markuu xorriyadda uu bixinayo. Lagana baahan yahay inay dadka la gumaysanayay ama maxmiyadda ku jiray sifahay doonaanba ha loo maamulo ay waxa weeyaan ay xorriyadda ku mutaysan karayaan. Oo waxaa ka mid ah United Nations Charterka ayaa ka mid ah 1945 soo baxay. Self determination iyo sovereignty, equality iyo prohibition of on force baa la yidhahdaa. Waxaa laga rabaa maxaa la yidhaahdaa dalka gumaysanayay meel ina uu ka tago haykal dowladnimada iyo maaraynta dhulkaasi gacanta ku haynaysa oo u dhammaystiran yihiin dhammaan shaqadii dowladuhu ay qaban jirtay. Magac kuma xusna, calan kuma xusna. Dowlado badan oo waxaa jira maalinta ay xorriyadda qaataan aan calan lahayn, hees calan aan lahayn, oo waxa weeyaan lacag lagu bixin jiray. Niman badan oo taariikhda ku galay baa jira inay dalkaasi calankiisa hindiseen iyo inay maxaa la yidhahdaa heesta calanka ay sameeyeen. Marka mar kasta doodu waxa ay ku wareegtaa meesha secondary-ga ah oo dal kastaba hadda uu u madax bannaan yahay inuu wax ka bedeli karo. Waxayna indhaha ka dadataa meelaha primary-ga ee laga rabo UN-tu ay ka rabto laba dal oo kala baxaya ina ay waxa weeyaan isweydaarsadaan. Waxaa kale oo la yaaba ka mid ah Ingiriisku ama dal kaste oo ka baxaya dal kale waa inuu madax bannaani toosa uu siiyaa. Sovereignty toosa waa inuu siiyaa arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, masiirkooga. Waxaasoo dhan buu adduunka u caddaynayaa inuu meeshaasi uga madax bannaan yahay. Marka waxaad arkaysaa narrative-yada dadka dhex yaala ina Ingiriiska iyo Talyaanigu kasii wada hadlayeen dowlad iman doonta oo waxa weeyaan isku iman doonta. Ina Ingiriisku lahaa qorshe ah ina Great Soomaaliya waxa la yidhaahdo la sameeyo ama cagsigeega Talyaanigu lahaa. Marka waxay ka dhigan tahay weli madax bannaaniba ma jirtaba. Haddii Ingiriiskuba go'aaminayo ina ay isku iman karayaan deegaanada qaarkood iyo inay kala maqnaanayaan iyo inta isku iman karta iyo intaanan isku iman karin. Marka maba jirto purpose dhan oo loo qoro independence-ka waraaqadiisa ama dalkaasi lagu sheego madax bannaanidiisa. Waayo still waxaa la go'aaminayaa waxa weeyaan waxaa la go'aaminayaa weli meesha uu mari doono. Marka madax bannaanidii sovereignty-gii koowaad ee laga rabay baa yaa meeshaasi ka baxaya. Waxyaabaha kale UN resolution-ka ka mid ah ee dalka madax bannaanida la siinaya ka siinayaba laga rabo waa ka la yidhaahdo Montevideo Convention. Waxa weeyaan inay meeshaasi jirto territory define oo xuduuda leh, inay permanent population uu leeyahay iyo inuu isagu ismaamuli karayo oo intaba Somaliland looga tegay 1960 26 June iyaga oo u madax bannaan oo mid kale ama dal kale oo mandaqada ka yaala aan wax wada shaqayna ama hoos tegida ama waxa weeyaan ku tiirsanaanshaha ama willing ah inay hadhow talo ku tiirsanaan doonaan ayna jirin. Intaasuu Ingiriisku ka tegey. Marka dhacdada maalinta xorriyadda la qaatay sidaan hore usoo sheegnay siday u dhacday iyo ujeedadii laga lahaa iyo waxa aad la iskugu khaldaa macnaha ay ku fadhinayso iminka modern sense-ka ee dowladnimada aasaaskeega iyo dowladaha kala xadaynteeda iyo inay dowladi dhalatay iyo inayna dowlad dhalan. Waxaad arkaysaa iminka oo kale waxyaabaha soo noqnoqonaya maalintii Somaliland maalintii Somaliland madax bannaanida 26 June waxaa aad looga farxay Djibouti, Muqdisho, Garissa, bla bla dhulkaasoo dhan baa xoog looga farxay. Of course waxa weeyaan struggle-ka ugu weyn iyo waxa dadka mideynayay hadday diin tahay iyo hadday qaarad tahayba ee Afrika waqtigaa ku noolayd waxay ahayd madax bannaani. Meel kasta oo madax bannaani ka dhacdo ayaa waxa weeyaan loo farxi jiray. Waxa loo farxay madax bannaanidii Liibiya, recordkeega la hayaa. Madax bannaanidii waxa weeyaan Aljazaa'ir, madax bannaanidii Suudaan oo weliba Masar ka qaadatay. Soomaalidu Suudaan iyo waxyaabo badan bay ugu dabaaldegtay. Memory history-gana way ku jirtaa iyaga oo arrimahaasi aad loo hadlayo. Waxyaabaha fun fact ee anigu ka warqaba waxa weeyaan
ninkii halgamaaga ahaa ee Cumar Mukhtaar waxyaabahan ku soo koray weeyaan anigoo cid kastoo reer Booramana ay ogaan karto. Masaajidka labaad ee magaalada Boorama laga dhiso waxaa la dhisay maalintii la dilay ninkaas. Sida dee arrinta ay saameynta u lahayd oo waxa weeyaan ay iskugu xidhnayd dadkuna mowqif keliyata uga wada taagnaayeen. Masaajidka waxaa loo bixiyey Cumar Mukhtaar baa loo bixiyey. Mar dambe ayaa laga bedelay magiciisa. In badanna cid kasta oo masaajidkaa kusoo barbaartay mandaqadaasi way taqaaneen. Ninkaa maalintii la dilay ayaa masaajidkaas la dhisay. Cid kastaa garanaysa oo magaalada joogta. Kama dhigna maadaama oon maalintaa la dareen ahayn Liibiya. De Liibiya dal ma aha kama dhigna. Oo tusaale uma soo qaadan karayo halkaasaan ka murugooday oo Liibiya xorriyaddeedii iyo dareenkii halkaa ka jiray maba garanayaba meel ay kasoo gasho discussionka noocyadan oo kale ah. Weliba waqti laga hadlayo dalkaasi sharciyad caalamiya ma leeyahay mise male. Sifihii caalamka ma soo maray mise ma soo marin. Dareenkaagii adigu aad qabtay qiiradii farxaddii maalintaa inay jadeeca kugu dhacday inaad caafimaad qabtay inaad faraxsanayd inaad dalka ka maqnayd ma garanayo meel alla meel ay kasoo galayso oo iyo si ay u proof garayn karayso dalkaasi inuu sii jiray iyo inuuna jirin. Marka waxyaabaha iyadana laftarkeega aadka ugu waxa weeyaan milan maalmahan aadka ugu dhex jira bay ka mid tahay. Arrinta kale aadka iyada laftarkeega u muhiimka ah waxa weeyaan arrinta ah shuruucda caalamiga ah imika ka dhalatay maalinta xorriyaddu inay noqoto define dalka territorygiisa iyo sovereignty-giisa iyo wax kasta oo dal kasta uu kaga duwan yahay lagaga garanayo inay noqoto ayaa keentay waxaanoo waxa weeye confusion ah waxaanoo dood ah waxaanoo waxa weeyaan struggle-kaas iyo doodan iyo sida ay isku soo beddeshay iyo in la ogaaday macnahaasi inuu soo kordhay waa la proof garayn karayaa. Waxyaabaha cajiibka leh ee hadda aan shalay toole uun aan ogaaday weliba caddaynteeda aan ogaaday aan ogaa in badanbaba waxa weeye arrintaasi inay jirto. Maalinta 26 June laba marxaladood bay soo martay sida ay Soomaalida macno ugu bixinayso. Saan hore u soo sheegay dhacdada macnaha sharci iyo macnaha caadiga ee u bixinaysana way kala duwan yihiin. Marka marbaa waxay soo martay Soomaalida oo dhan inay u arkaysay ama dowladdii Soomaaliya ee xilligaa jirtay inay tahay khiyaamo inaan la xusi jirin. Maadaama oo ay xambaarsan tahay sharciyad dowlad samaysa ama state formation maadaama ay xambaarsan tahay dowladdii kacaanka iyo 33 sano ee Soomaaliya la isku jiray lama ictiraafi jirin. Actually arrintaa weligay waan maqli jiray laakiin shalay bay ahayd markaan ogaaday Telegram ay isweydaarsadeen Talyaaniga iyo Britishka oo ay leeyihiin waxa weeyaan dhalinyarta Hargeysa ka xusta 26 June waa jirdil baa loo geysanayay. Halkaas aan soo dhigi doonaa waana la verify garayn karayaa. Marka waqtigaas waxay ahayd macno kale lahayd maadaama oo dalka labadii gobol iyo labadii dal aan idhaahdo ka saxsan ay hal isku yihiin. Wax kasta oo kicin karaya dood sharciyadeed oo ah inuu dal kale meeshan ku dhex jiro mamnuuc bay ahayd. Waa sababta hoosna loo dhigayay recordskana loo heli karayo qofkii arrimaha ku kaca inuu dembi mudanayay ama khiyaamo ay ahayd. Maanta cagsigeygii baa jirta maadaama oo labadii dal ay kala gurteen oo mid walba caasimadiisii uu si gaara u joogo. Waxa weeyaan still waxaa lagu jiraa struggle-kii ahayd maalintaasi waxay wadataa caddayn dowlad dhalatay. Marka waa inaan maalintaba qaadanaa waa inaan maalintaba laftarkeega aanu afduubanaa. Shalay toolana waxay ahayd khiyaamo maantana waxa weeyaan waa arrin qaran oo waxa weeyaan ay tahay in cidiyaha loogu dagaalamo sidii loo qaadan lahaa oo loo tusin lahaa ama calan ku dood ama magac ku dood ama maalintaa inaad faraxsanayd iyo inaad qiireysanayd ku dood inay adigu aad leedahay oo halkaasi uuna ka dhalin wax dowlad ah ama wax dal ah inay ka duwan tahay 27 June kan maanta ay waxa weeyaan ay maxaa la dhahdaa u dabaaldegayso Djibouti. Marka haddaan intaas soo koobo saddexda arrimood aan ka hadlay maalintan waxa weeyaan waqtigaasi struggle-kii lagu jiray ee laga midaysnaa ee cidna isku diidanayn ee la iska caawinayay oo wada xiriirku u socday ka jigjiga jooga oo SYL ay xafiis ku lahayd ka Muqdisho jooga
iyo ka waxa weeyaan Jabuuti oo FCL FCL xeebta kuwii xoreynaya ahaa iyo ka Hargeysa iyo Boorama joogaba maalinta struggle-kii lagu jiray ee decolonization-ka ahaa ee Africa oo dhan ka jiray ee dhulka Islaamka ah ka jiray inuu ka baxo cid dadkan masiirkooga maamusho ay ahayd waa laga midaysnaa. Laakiin lagama midaysnayn dowladnimadan casriga iyo xuduudaheega iyo nooca ay doonaan ay noqonayso. Waxyaabaha la yaab kale ee cajiibka ah taariikhdana ku jira waxa weeyaan reer Somaliland waxay threat weyn dareemeen oo hortooda lagu arkay. Aniguna marmar aan ku doodaa waxa weeye the British Somaliland Protectorate waxay ku aasaasantay heshiisyadii lala galay beelaha Somaliland ee 6 ah. Waxayna state gareynaysay inaanan Ingiriisku ku wareejin karin dhulkooga dal kale. Marka 1954 waxa laga wareejiyay Hawd and Reserve Area ba Ethiopia lagu wareejiyay. Marka arrintaas waxay ku kaliftay reer Somaliland inay qabtaan falowgii intan soo hadhay aan la wareejin karin. Uncertainty ama hubitaan la'aan waxaan iminka loo bixiyay bay galeen. Waxa weeyaan haddii Ingiriisku sii joogo waxa weeyaan intan kale soo hadhay baa haddana la bixin doonaa. Marka waqtigaasay bilaabantay inay ka fikiraan dalalka deriska la ah ee Soomaalida ah inay ama ay wada midoobi karaan ama inay kala tegi karaan. Mar kastana waxaa la arkayay intaa ka dambeysay records-ka la hayo niman badan oo reer Somaliland oo waxa weeyaan professor ah oo waxa weeyaan Michael Maryama iyo niman badan ay ku jiraan inay dadaalka ugu badan United Nations ay ka galayeen sida Soomaaliya laftarkeegu ay madax bannaani u heli lahayd oo iyagoo ka duulaya inay ka baaqsadaan dhul kale in mar labaad laga bixiyo. Marka arrintaasi waxaa ka jirtay arrin cusub oo soo korodho ah inay dowlada samaysmayaan, inay xuduudo yeelan doonaan, inay xuduudahooga ku salaysnaan doonto intuu gumaysigu ka tegey iyo maalintay xorriyadda qaateen. Dhalashadooda inay maalintay xorriyaddu qaateen ay noqon doonto iyo waxa weeyaan inta gumaystuhu ka tegayna inay xuduudooda noqon doonto oo Montevideo Convention-ka loo eegi doono. Marka halkaasuu ka yimid crisis-ka ugu weyn. Inta ugu horeyso dhan laguma kala duwana. Cid baa gumaystaha ogolayd iyo cid baanan ogolayn iyo cid baa ka shaqaysay iyo cid baanan ka shaqayn. Question-kaasi ma oolin. Soomaalida deegaan kastay joogtay waxay la qabtay Afrikaanta iyo Carabta iyo Islaamka inay dhulkooga u madax bannaanaadaan. Laakiin struggle-kaasi markuu soo gabagabowday waxaa timid dowladnimadii casriga oo xuduuda leh oo maalin dhalasho leh oo waxa weeyaan madax bannaani leh oo concept cusub oo meeshanba oolin baa soo kordhay. Marka marka la rabo ina ixtiwaa la sameeyo ama doobsi in la sameeyana